nin rakaaba oo aan haba yaraatee soo marin dugsiyada lagu barto duulimaadka diyaaradaha ayaa badbaadiyay rakaabkii kale ee uu la socday ee diyaaradda ay wada saarnaayeen kadib markii uu duuliyihii diyaaraddu xanuunsaday. ninkani oo magaciisa lagu soo gaabiyey John ayaa beegsaday kursigii duuliyaha markii uu ka war helay in duuliyihii diyaaradda waday uu xanuun degdeg ku yimi iyagoo hawada maraya isla markaasina sii wata duulimaadkooda. sida ay warbaahinta u sheegeen guddiga maamusha garoomada diyaaradaha waddanka Ingiriiska waxay tilmaameen in Mr John aan waxba ka aqoonin diyaaradaha sida loo duuliyo waxaana uu diyaaradda u soo cagadhigay muddo 30 daqiiqo ah. waxaana guddigu intaasi ay ku dareen in ninkaasi laga hagayay dhulka isla markiiba maamulka garoomadu waxay go'aansadeen inay ka bedelaan garoonkii markii hore ay ahayd in diyaaraddu soo cagadhigato waxaana loo bedelay garoon ka weyn kii loogu talagalay diyaaraddaasi inay ka soo degto. waxaana si joogto ah u hagayay isla markaasina ula hadlayay duuliyaal ku sugan dhulka oo u sheegayay waxyaabaha uu sameynayo iyo meelaha uu taabanayo. sidoo kale waxay guddigaasi sheegeen in markii uu soo gaadhay garoonka duuliyahani cusubi lagu khasbay inuu waxoogaa garoonka ku dul wareego kadibna markii uu dhowr jeer ku dul wareegay loo sheegay inuu fadhiisiyo diyaaradda. waxaana sida warbaahintu ay sheegayso garoonkaasi ku sugayay gaadiidka caafimaadka ee gurmadka degdega ah iyo sidoo kale gawaadhida dabdamiska. dhulka ayaa si toos looga hagayay isla markii uu soo dhawaadayna waxaa si tartiib loogu sheegay sidii uu soo fadhiisan lahaa. waxaana cabsi weyn ka qabnay inuu amarada qaadan waayo isla markaasina marxalad kale ay meesha ka soo baxdo. laakiin markii dambe si fiican ayaa uu fadhiisiyay sidaasina waxa yiri afayeen u hadlay maamulka airportka ee diyaaraddu soo cagadhigatay. asaatee warbaahinta amuurtani ka faalootay waxa kale ay sheegtay in duuliyihii hore ee xanuunsaday markii ay diyaaraddu soo cagadhigtay garoonka uu isaga laftiisu geeriyooday.